Salaamu Ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaarta sharafta loo meel walba aad dunida ka joogtaan kheyr bashbash iyo barwaaqo iyo horumar ayaan idin rajeynayaa in nabad qab. Maanta barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa qeybta caafimaadka, gaar ahaan broccoli oo ah khudaar ka mid ah khudaaraha aad iyo aadna caafimaadka qofka bini'aadinka ah qeyb liwaax ka qaata. Haddaba broccoli afar ka mid ah qodobada caafimaad ahaan wax uu qabto baan maanta waxaan doonayaa in aan idinla wadaago akhyaarta sharafta loo meel walba aad dunida ka joogtaan. Haddaba maxay tahay broccoli waxyaabaha uu qabto? Caafimaadka indhaha qeyb liwaax ah buu ka qaataa. Qofka karsada ee cuna iftiinka indhaha, xanuunka indhaha wax weyn buu ka qabtaa. Iftiinkana waa uu kordhiyaa. Waxyaabaha uu qabto qeybta labaad wuxuu yahay difaaca nidaamka jirkaaga wuxuu u sameynayaa awood iyo quwad buu siinayaa. Qofka markuu da' yahay ama qofka markuu xanuun soo wajaho jirkiisii isbedelka ku imaanayo oo daciifayo wax weyn buu ka qabtaa. Awood iyo quwad buu siiyaa. Allah inaga korayo. Qeybta saddexaad waxaan ku qaadanaynaa kansarka. Qofka jirkiisa wuu ka ilaaliyaa. Caafimaad ahaanna jirkiisi qofkaas uu ka hortagaa in kansarka Ilaahay naga haye qofka uu soo wajaho jirkiisi. Qodobka afraad ee asna aadka iyo aadka u muhiimsan ay tahay inaan ku baraarugno waxaa ka mid ah isku dheelitirnaanta hormoonka. Haddaba taasna muhiim kale weeyaan. Afartaasi qodob waa wax uu qofka bini'aadinka ah u baahan yahay. Caafimaad ahaanna wax weyn haddii Allah awoodda leh uu yiraahdo ka bedeli karo qofka cuno broccoli. Haddaba broccoli waxaad u samaysan kartaa sida maraqa aad samaysanayso baad ku darsan kartaa inaad jarjarto. Kama dhex garanaysid khudaarta caadiga ah aan cunno ama cunnada aan ku darsano. Aad iyo aad buu muhiim u yahay. Sida aad wada ogtihiin waxaan ku soo qaataa waxyaabaha ugu muhiimsan oona ah waxyaaba dabiici ah oo hore loo tijaabiyey. Qofka bini'aadinka ahna hadduu tijaabiyo oo cuno waxyaabo badan uu ka dareemi karo. Qofkaan hore u cunin baan ula jeedaa. Aniga dhowr mar baan cunay waana cunaa. Waxyaabo weynna jirkeyga waa uu ka bedelay. Intaan barnaamij la mid aan ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa bashbash, barwaaqo, horumar iyo caafimaad iyo guul
aan lasoo koobi karin haddii allaha awoodda uu yiraahdo. Haddii allaha awoodda leh uu yiraahdo, haddaba ha iga iloowin sheerka, like-ka, subscribe-ka iyo comments. Intaasi waxay qurxin iyo horumarin iyo dhiirigelin aniga ii tahay inaan barnaamijka ku dhiirado waxyaabo tayo leh oo qaybta caafimaadka aan kusoo qaato aan idiin soo diyaariyo. dhinaca kalena waxay si sahal ah u gaaraysaa asxaabta iyo ehelada iyo qaraabada markaad sheerka ku qabato, subscribe-kana aad ku samayso, like-ka iyo comments oo ra'yigiina muhiim ii yahay inaan ogaado barnaamijkan caafimaadka leh waxyaabaha aad ka faa'iiday inaad hoos igu reebto. kheyr iyo bashbash iyo barwaaqo meel walba aad joogtaan ku jooga. xil walba idin tahayna caafimaad qab, nabad qab ayaan idin rajeynayaa insha allah biidni illaahi kariim.